amintiriska dabshidka oo ay Soomaalidu isticmaalayeen waqti aad u dheer laguna qiyaaso 2500 oo sano waa amintiris ku salaysan wareeg toddobaadla ah oo si yaab leh isugu soo noqnoqda oo dhinac walba oo aad ka eegtana wax qalad ah aan lahayn. kalandaro ama amintirisyo laba ah ayay Soomaalidu isticmaalaysay oo mid ku shaqeeyo qorraxda solar calendar oo loo yaqaano dabshidka waxaa isticmaala beeralayda iyo xoolo dhaqatada, iyo mid ku shaqeeya dayaxa lunar calendar oo ay isticmaalaan xoolo raacatada. amintiriska dabshidka oo ay Soomaalidu isticmaalayeen waqti aad u dheer laguna qiyaaso 2500 oo sano, taas oo ka dhigaysa ka hor labada kalendar ee miilaadiga oo ah kan gaalada iyo hijriga oo ah kan muslimka, halkaasna uu ku noqonayo mid ka mid ah kalendarrada ugu qadiimsan ee laga isticmaalo dunida. waxaa khasaaro weyn ah iyo guuldarro mug leh in kalandarka awoowayaasheen aan iska ilowno oo uu sidaa ku dhumo. haddaan ka hadalno sida uu u shaqeeyo kalendarka dabshidka, waa amintiris ku salaysan wareeg toddobaadla ah oo si yaab leh isugu soo noqnoqda oo dhinac walba oo aad ka eegtana wax qalad ah aan lahayn. amintiriskan ma aha sida kalendarrada caalamka intooda badan mid ku salaysan wax caqiido ah ama diin, ee waa mid dhaqaale, sida xilliyada beerashada iyo xilliyada ay rooba ku da'aan. waxaa mudan inaan xusno in cid aan Soomaali ahayn oo isticmaashaa sannadkan toddobaadlaha ah aanay jirin, laguna hayn taariikhda ka hor diimaha masiixiga iyo tan yuhuudda. xataa Giriigga, Roomaanka iyo caalamkii hore intiisa kale waxay isticmaali jireen toddobaad gaara ilaa iyo 10 maalmood. waxaa la isticmaali jiray bil ee maalmaha toddobaad ahaan looma tirin jirin. sannadka dabshidka waxa uu dhammaadaa maalinta uu bilowdo ee toddobaadka. tusaale ahaan, sannadka haddii dabka la shido maalin sabti ah, waxa uu dhammaadaa maalin sabti ah oo dabka la shidaa. sannadka xigana waxa uu bilowdaa maalin axad ah, ka xigana maalin isniin ah, sidaas ayuuna u shaqeeyaa. toddobaadka oo ka kooban 7 maalmood marka la isku dhufto 7 mar wuxuu keenaa 49 maalmood, taasoo lagu kordhiyo hal maalin si loo buuxiyo 50 maalmood. sabti hadday tahay maalinta sannadku bilowday, waxaa la yidhaahdaa sabti ka sabti 50 oo ah 50 maalmood. marka aan ku sheegno sida ay Soomaalidu u tiriyaan sannadka, tusaale ahaan waa sidan: sannad bilowday sabti, sabti ka sabti 50, axad ka axad 50, taas oo ah 100 maalmood. isniin ka isniin 50, talaado ka talaado 50 oo ah 200 maalmood. arbaco ka arbaco 50, khamiis ka khamiis 50, taasoo iyadana keenayso 300 oo maalmood. jimco ka jimco 50, halkaasna waxay isku noqonayaan 350 maalmood. markaa ayaa waxaa lagu kordhiyaa 2 sabti oo 15 maalmood ah si loo dheelitiro sannadka, wuxuuna halkaas ku noqdaa 365 maalmood oo ah tirada maalmaha sannadka. waxa kale oo halkaa ka cad in bacdamaa sannadku bilowday maalin sabti ah, dhammaadayna maalin sabti ah, sannadka cusub waxa uu bilaabanayaa maalin axad ah. sidaasayna sannaduhu isugu xigaan 7 sano kadibna waxaa soo noqda sannad sabti ah. kalendarka dabshidka uma qaybsana bilo, ee waxa uu u qaybsan yahay 4 xilli oo kala ah xagaa, gu, dayr iyo jiilaal. sidaan hore u soo sheegnay, cidi lama wadaagin Soomaalida tirada 7 ka hor diimaha, oo tiradaa u yeeshay macno gaar ah, sida 7 samo, 7 dhul, 7 naar, 7 wareeg ee dawaafka Kacbada iyo waxyaabo kale oo badan. haddaba haddii uu kalendarkan yahay mid soo jiray muddo 2500 oo sano ah, maalmaha hadda la adeegsadaana ay yihiin kuwa islaami ah, waxaa su'aal ah, maxay ahaayeen magacyada ay u adeegsan jireen Soomaalidii hore toddobaadka? sida ay sheegeen taariikhyahanada, waxaa jiray magacyo ciyaaraha qaarkood loo adeegsado, waxayna u eg yihiin magacyo maalmo hadda laga tegey, sida biito, helelebi, laaqshow, tuux, taax, iyo xitaa waxaa jira magacyo kale oo hadda la isticmaalo oo ah doraadtii ka horraysay, doraad, shalay, maanta,
berri, saa dambe iyo saakuun. si aan aad ugu fahmno waa inaan u fiirsannaa kalendarkan isku dhafka ah ee miilaadiga iyo dabshidka. haddaad u fiirsato kalendarkan waxaad arkaysaa inuu bilowday maalin axad ah oo waafaqsan 17 luulyo ee sannadka 2022. sannadka dabshidka waxa uu bilowdaa bisha luulyo aalaaba inta u dhaxayso 17 ilaa iyo 19 bisha. si aan u xaqiijinno sannadka Soomaalida ee dabshidka in uu yahay mid turxaanla, waa in sannadkan uu dhammaado sidaan hore u soo sheegnay maalinta uu bilowday, taasoo ah maalin axad ah, kan xigana bilowdo maalin isniin ah. waana sida ku cad kalendarka ee bisha luulyo 2023 wuxuu dhammaaday maalin axad ah, kan xigana wuxuu bilowday isla maalinta xigta ee isniinta ah. sidaas ayuuna magaciisu ku noqonayaa sannad isniin ah. waxaan halkaa ku joojinaynaa qaybta koowaad. hadduu alla idmo waxaan halkaa ka sii ambaqaadi doonnaa qaybta labaad ee taariikhda qotada dheer ee sannadka dabshidka.